بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مادام aan ku jirno bishii Ramadaan ee barakeysneed oo khayrka badneed waxaan insha Allah haddii Ilaahay ka raali noqdo ugu talagalna inaan soo gudbino mowduuc yar oo ku saabsan Qur'aanka Kariimka iyo bisha Ramadaan oo barakeysan cilaaqada ay leeyihiin maadaama bisha Ramadaan ay tahay shahrul Qur'aan Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa uu noogu sheegay shahru Ramadaan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan bisha Ramadaan oo aan ku jirno khayrkeedu badan yahay waxa lagu tiriyaa 12 bilood oo sanadu ka kooban tahay bisha ugu khayrka badan waxaana ku kasbaday bishaas khayraadkaas ay leedahay ku kasbatay waa shahrul Qur'aan oo kalaamullah munazzal ayaa soo dega bishaas Ilaahay baa noo sheegay uu leeyahay shahru Ramadaan alladhi unzila fihi al-Qur'an wa bil Ramadaan oo Qur'aanka uu soo degay shahru Ramadaan alladhi unzila fihi al-Qur'an gaar ahaan sida culimadu ay u badan tahay wuxuu soo degay Qur'aanka Kariimka al-ashr al-awaakhir min Ramadaan 10ka dambe ee bisha Ramadaan khaasatan habeen ku jira sida culimadu ay u badan tahay ama jumhuur culimada ay maartay sheegeen 10ka dambe oo laylatul qadr oo Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatin mubarakah Qur'aanka waxaan soo dejinay habeen barakeysan waa laylatul qadr inna anzalnahu fi laylatil qadr Qur'aanka waxaan soo dejinay laylatul qadr sida Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu oo sheegay Qur'aanka Kariimka wuxuu leeyahay unzila al-Qur'aanu Qur'aanka waa la soo dejiyay jumla waahida Qur'aanka waa la soo dejiyay jumlatan hal mar ayaa la soo dejiyay waxa laga soo dejiyay lawhul mahfuud waxa la soo dejiyay samaa dunya baytul izza oo ku yaala samaa dunya hal mar ayaa la soo dejiyay mar alla markii hal mar la soo dejiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida aan ognahay Qur'aanka oo Jibriil u soo dhiibay 23 sano oo 13 sano marka nabiga Kaleey salaam markii uu joogo lagu soo dejinayay 10 sano markii Madiinatu Munawwara uu joogo Qur'aankan Ilaahay leeyahay habeen laylatul qadr leeyahay ayaan soo dejinay sidee warkaas uu noqonaya Qur'aanka Kariimka waxay leeyihiin sida mufassiriintu ay ugu badan tahay hal mar ayaa la soo dejiyay oo waxa laga soo dejiyay lawhul mahfuud waxaana loo soo dejiyay samaa dunya baytul izza oo ku yaal mar alla markii loo soo dejiyay halkaas ayaa 23 sano asigoo mufarraqa bihasbi alwaqa'i wal ahdath hadba dhacda iyo xukunka loo baahan yahay ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu soo dhiibayay sida Jibriil alayhi salaam oo uu soo dhiibayay nabigeena alayhi salatu wasalaam culimada qaar waxay leeyihiin saas ma ahayne Qur'aan Kariimka habeen laylatul qadr oo bil Ramadaan ayuu bilowday soo dejintiisu ka dambana Ramadaan iyo qeyrkiisba uu soo degay laakiin Qur'aanka aayad kasto kamid ayaa Qur'aan lagu magacaabaa idan marka aayadii ugu horeysay oo nabigeena alayhi salatu wasalaam lagu soo dejiyay ayaa habeen Ramadaan soo degtay maadaama aayad kasta oo Qur'aanka kamida Qur'aan Kariimka kamida aayad kasta lagu magacaabo Qur'aan lagu magacaabi karo aayadii ugu horeysay ama suuradii ugu horeysay Qur'aan Kariimka kamida ayaa waxay soo degtay bil Ramadaan iyo habeen laylatul qadr saas ayaa waxa la leeyahay Qur'aanka in laylatul qadr uu soo degay Ilaahay noogu sheegay mooyee Qur'aanka hal mar soo ma degin al-haasil waxa loo badan yahay in sida Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu uu sheegayo in hal mar Qur'aanka la soo dejiyay lawhul mahfuud laga soo dejiyay ka bacdina 23 sano asigoo mufarraqa hadba dhacda iyo xukunka loo baahan yahay nabigeena alayhi salaam lagu soo dejinay طيب Qur'aanka marka Kariimka khusuusiyada uu leeyahay oo bisha Ramadaan in la akhriyo Qur'aanka Kariimku waa kalaamullah al-munazzal mar waliba qofka muslimka oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo qalbigeeda geliyay inuu akhriyo waa laga doonaa laakiin bishaan aan ku jirno cibaadadu
ilaahay waa la laabaa subxaanahu wa tacaala si nabigeena calayhi salaatu wasalaam loo sheegayo qur-aanka kariimkuna wuxuu ka mid yahay bishaan wax ilaahay loogu dhawaado wax ugu khayrka badan maxaa yeelay bishaan waxay ku sharafowday ay 12 bilood ay bisha ugu sharaf badan ay u noqotay waa in lagu soo dejiyay kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala Sufyaan ath-Thawri saaxib al-madhabki taabiciga ataqeenay oo muhaddis-ka ahay wuxuu leeyahay bisha ramadaan inma huwa it'aamu ad-da'aam wa qiraa'atu al-qur'aan bisha ramadaan sideedaba waa in qofka dadka gaajeysan la quudiyo wax la bixiyo iyo qiraa'atu al-qur'aan labadaas waa uu leeyahay salafu saalix hawsha ay ku jireen haday duruus akhrin lahaayeen iyo haday tasniifaad iyo mu'allafaad ku jireen intay faraha ka qaadaan ay bishaan waxay korka uga dhici jireen ama aad iyo aad u akhri jireen quraanka kariimka oo Sufyaan ath-Thawri wuxuu leeyahay inma huwa it'aamu ad-da'aam wa qiraa'atu al-qur'aan bisha ramadaan sideedaba waxaa loogu talagalay ayuu leeyahay in la quudiyo dadka gaajeysan oo dhibaataysan iyo quraanka kariimka in la akhriyo Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wuxuu leeyahay oo ka sugnaatay الصيام والقرآن صومك يا قرآنك يشفعان للعبد يوم القيامة صومك يا قرآنك كريمك ويشفع عيان الضونك مالك قيامة مالك قيامة ويشفع عيان يقول الصيام صومك وحوليه منعته الطعام والشهوات waxaan ka u diiday oo ka celiyay adoonka cuntadii iyo shahawaadkii rabitaanka waxyaabaha naftu ay jecleed ayaan ka diiday oo ka celiyay maxaa yeelay qofka haday soomanta waxa nafteeda rabto ma cuni karto waxir ma cabi karto waxyaabaha kale oo muladaadka ma sameey karto idan wuxuu leeyahay soomka aakhira marka la tago adoonka ilaahay hortiisa wuxuu ka leeyahay waxaan u diiday oo ka reebay cuntadii iyo shahawaadka فشفعني فيه إلهي شفاعة إرجان هاي إرجادس أقبل منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه مالنتي أيام وحن أديدي عبدي يعنتدي وحيابي نفت أي ربطي فشفعني فيه إلهي إرجع أيام هاي إرجادس أقبل ويقول القرآن كنا وحوليه قرآن وحوليه منعته النوم hurdadii ayaan u diiday oo qofka quraanka kariimka caawaday leeytu qiyaamul leyl u soo jeeda ee caawada quraanka kariimka ku dukanaysa marna quraanka akhrinaysa haday hurdi mayso hurdadii ayaan u diiday bil leyl habeenki fashafi'ni fi ila shafaacadan ka ergaanka ay ergadeed aqbal quraanka yaa dhahay idan waxaad u jeedaa sida Abdullah ibn Mas'ud saxaabigaas jaliilka uu noo sheegay quraanka kariimka iyo soomkuba labadoodaba inay intay marka aakhira la tago adoonka ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ilaahay hortiisa ay erga uga naqanayaan shafaaco u shafaacayaan oo soomkina leeyahay dartay ay uga taga cabitaanka iyo cuntada iyo waxyaabaha naftu ay jeclaadeen ilaahu erga ayaan ka ahay ergadii aqbalo dib dhaafsi kadalika quraanka kariimka uu leeyahay habeenka muusan hurdi jirin oo aniga dartay ay u soo jeedi jiray oo quraanka kariimka ay habeenka akhri jiray fashafi'ni fi ilaahu ergadii aqbal idan meesha waxaa ka cad quraanka kariimka iyo soomkuba inay adoonka u shafaacayaan aakhira marka la tago